ciidanka asluubta dalka waxay ka mid yihiin ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed waxaana la aasaasay 22 Febraayo 1970 ugu horeeyay ciidankaasina waxa uu ahaa Allah u naxariistay Ismaaciil Axmed Ismaaciil waana ciidan u tababaran ilaalinta maxaabiista iyo inay baraan anshaxa dadka xabsiga lagu soo xiro iminka waxa laga joogaa markii la aasaasay 47 sano burburkii dawladii dhexe dalka waxa ciidamada asluubta ay soo mareen marxalado kala duwan iyo xilli adag ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa hadda dib u soo celinaya inay buuxiyaan kaalintii ay kaga jireen ciidamada qalabka sida waxaana iminka ay ku talaabsanayaan horumar kala duwan ayadoo ay dib u soo laabanayso faa'iidooyinkii kala duwanaa ee ummadda Soomaaliyeed ay u qaban jireen ciidanka asluubta مالي حضر وحنا سنصريو وحنا سنجوريا وحنا سنشيء فراش ما شاء الله ركوا اسكتوا لنا كلا فلا صح موجود وحنا كريت شوري وحماية عشان كهايم كوبا بيجي ما شاء الله والعافية أنا قلت ميدل كلام نقول قرآن كحيو بسارة قرآن كبارمي حتى لو برشة تسير سارة أو بسارة بس ما شاء الله ما شاء الله في بلوان بالحلال اللي عارف لا ميك أصلي أنا حلو قلبي كسر كاس الكوليست ساعدة أكتر الكوليست ما عندك نيك فرصة بسارة يا نيك فرصة إلى أسلوب تغير هذه حسين علسو حسين علسو
2015 ayaa Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe waxaa loo magacaabay taliyaha ciidanka asluubta. Isbedel muuqda ayuu waxa uu ka sameeyay taliska ciidanka asluubta. xabsiga dhexe Xamar wali ma aysan dhicin in maxbuuska uu helo TV uu kala soconayo wararka caalamka iyo ciyaaraha. qaboojiyaal ayaa loogu xiray qolalka ay ku jiraan maxaabiista. dhismayaal cusub ayuu taliska ciidanka asluubta wuxuu ku soo kordhiyay xabsiga dhexe sida dugsi waxbarasho, warshad. maxbuuska asigoo ku jira xabsiga dhexe ayuu baranayaa waxbarasho kala duwan. farsamada gacanta ayay baranayaan, waxaana taliska ay sameeyeen warshad maxbuuska lagu tababarayo. waxayna sameynayaan agab xafiiseed dhameystiran iyo qoryaha ciidanka lagu tababaro. 2014 bishii koowaad muddo 36 bilood ilaa 37 bilood ah waaye waxaan xiranahay hadda aan joogo 5 sano lagu xukumay. kadib 2 sano kadib waxaan ku soo biiray meeshan warshada, qaybtan warshada aniga iyo dhalinyaro kale oo badan oo hadda halkan ila jooga. qaybtan xarqaanka waa ka baxay, waan ka gudbay. waxaan u gudbay qaybtaas faryaamada. waa si hadda ninkan anoo hayo uu iigu yimid oo shaqada ku jiro. waxaan ka shaqeynaynaa muddo hadda 2 sano ku dhawaada. waxaan ku bartay faryaamadii, waxaan ku bartay qaabka loo sameeyo alwaaxda, tolmadii xarqaanka. intaas buu aan baranay. noloshiisa xabsiga 2 sano ka hor waxay ahayd mid aad u xadniban oo dhibaato ah oo shida ah. markaan imaanay aniga waxay ahayd mid aad u dhib badan oo aad ciriiri u ah xataa cunnada xaggeeda. laakiin haddeertaan cunnada waa caadiga oo waa aad u fiican tahay. sariiraan leenahay, awal sariira ma jirin, heese iyo wax walba aan ka fiirsano. intaasna waxaa noo sameeyey maadiya ka gaadhay taliyaha xabsiga ama generaalka xabsiga Bashiir. waxaan rajeynayaa horumarkii inta aan ku bartay inaan ku shaqaysan doono oo aan noqon doono nin shaqaysta oo beledkiisa ka shaqaysta. hadda bacda xabsiga waaba ka gudubnayba xabsi ma rabno inaan ugu yeerno laana waxa waaye meel dadka muxuu ahaa wiilal iyo gabdhaba ee Soomaalida ah ee xoogaa si wax ka noqdaan oo qaanuunkii ayagu ishardiyaan markay maxkamaduhu soo xukumaan la keeno oo lagu maartahay ayay noqonaysaa. waxaan ku talagalnay marka inaysan noqon goob hayn kaliya oo dadku xorriyadda kaliya looga qaado, laakiin ay noqoto goob ay ka faa'iidaan oo marka qofka muddada ay maxkamaduhu ku soo xukumeen u dhamaysto oo qofkii muwaadinkii u yeelan karo muxuu ahaa fursad inuu bulshadiisa dib ugu noqdo, waxna taro asaguna wax ka qabsado oo waxyaabihii ku kalifay inuu muxuu ahaa xeer gudubka sameeyo aysan baahi dambe u qabin oo baahidaas maartay dhaafo. ay helayaan muxuu ahaa xarumihii waxbarashada oo caadiga ahayd waxbarashada maartay caadiga ah oo dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi sare ilaa jaamacad wixii dhiganaya iyo qayb ah farsamada oo aanu barayno ilaa 7 takhasusaad oo kala duwan oo farsamada gacanta sida najaaradda, aluminiyumka, alxanka, dhartoolista, dhismaha, yacni qaybo badan oo waxbarashada oo farsamada gacanta oo hadda aluminiyumka oo kale dalkeena kuma badna lamana yaqaan. halkan waxay noqon doontaa xarumaha ugu waaweyn oo wax ka shaqeeya. waxaan ka hadlayna qalabkii lagu sameyn lahaa waa yaalan oo waana soo gaareen waa yaalan. xafiisyada hogaamada ciidanka asluubta ayaa dib u habeen lagu sameeyay ayadoona taliska ciidanka asluubta oo iminka uu ku howlgalayo xarun si kumeel gaar ah ay ugu shaqeeyaan, ayadoona ay ku soo badanayaan dhalinyaro dalka gudihiisa wax ku baratay kuna biiray ciidanka asluubta. taliska ciidanka asluubta ayaa qayb weyn ka qaatay 26 sano kadib markii ugu horeysay in ay soo aruuriyaan caruurtii ku dayacneed magaalada Muqdisho ee gidaarada seexan jiray. waxayna iminka waxbarasho ku qaadanayaan xarunta aqoonta gabdhaha ee degmada Afgooye. bishii Oktoobar ee 2016 ayaa Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe
waxa uu noqday sarkaalka ugu sareeyo ciidamada qalabka sida ee dalka kadib markii uu u dalacay darajada sareeya guud. taliyaha ciidanka asluubta sareeya guud Bashiir Maxamed Jaamac ayaa waxa uu sheegay in ciidanka asluubta ay guul u tahay in taliyahooda uu qaato darajada ugu sareysa ciidamada qaranka, isagoona xusay in ciidamada asluubta ay hiigsanayaan horumar kala duwan. qorshaha taliskana uu yahay in sare loo qaado tayada iyo wax soo saarka ciidanka. sareeya guud Bashiir Maxamed Jaamac taliyaha ciidanka asluubta ayaa hadda noqonaya generaalka ugu sareeya ee ciidamada qalabka sida, iyadoo darajada sareeya guud Soomaaliya uu horey u lahaa allaha u naxariistay ekis sareeya guud Maxamed Cali Samatar. xabsiga dhexe dalka waxa laga cabi jiray biyo dhanaan, taasi waxa ay keeni jirtay in mararka qaar uu shuban biyood uu ka dilaaco, laakiin maanta xaalka sidii hore ma ahan. waa kan taliyaha xabsiga dhexe ee dalka
jenaraal maxamed cumar xirsiile. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin. waxaan maanta wax yar oo warbixina idinka siinayaa sida biyahan oo macaan ee hadda xabsiga la gelinayo ay ku yimaadeen iyo waxyaabaha kaloo la midka oo horumar kale oo xabsigan laga qabtay muddadan halka sano iyo barka ee taliskan uu joogo. biyahan 2013 Oktoobar ayaan imid meeshan aniga iyadoo biyo dhanaan xabsigan laga cabo iyo wax la litaro macaana waa ila muuqan weysay inay socdaan. waxaan isku dayay inaan tabar iska dayo oon qodo ceelkii baan qoday markii muddo sanad iyo bar ah la cabayay asagiina wuu xumaaday. waxaana loo keenay ceelkan waxaa la yidhi meel la yidhaha marshaala laydinkaga soo qaadaya. marshaale wuxuu ahaa marka laga keeno furaha unbaa lagu siin. markii taliskaani yimid ooy wada hadleen ooy wada kulmeen waxaa iskaashaday ayaga iyo taliska waxayna go'aan lagu gaaray in masaajidka isbahaysiga laga soo qaado. muddada 2 sano iyo barkaa ayay jiitamayeen biyahan. ilaahay wuxuu ku guuleeyey taliskan ciidanka asluubta ee uu madaxda ka yahay sareeye guud Bashiir Maxamed Jaamac. sidaa ayay ku yimaadeen biyahan macaan. waxaa kaloo jirtay markaa aan imaanayo iyo wixii ka dambeeyaba in jeef xumo aad u fool xuna oo iga kacabaar aan seexda la yiraahdo ay jirtay. markii taliskan yimid iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo asagu horay uga soo horeeyay Bashiir ayaa isgarabsaday. adiga dadaal badan ka bacdi ayadoon cid hay'ada iyo wax kaalmeeya iyo midna ay jirin taliya Bashiir wuxuu ku guuleystay in uu sariiro u dhigo oo si ay dhulkii u qaado dhulkii laga qaado oo laba dabaq biyaana la isu saaro sariirihii laba is kor saara oo yaraato lana dhiso xabsigii garsugaha oo doonsanay. markaas ayaa xabsigu nafis yeeshay qaboobay xabsina uuna noqon kulleej camal ba noqday. markaa waxaa loogu sii daray si ay ayaga ruuxoodu adduunka ula socdaan telefishin oo taliyaha keenay oo ugu talagalay inay isku maaweeliyaan. waxaa loo fasaxay kubad. hadda xabsiga aniga uma arko xabsi sidii aan awal arki jiray sanooyinkii hore ilaa Maxamed Siyaad ilaa hadda xabsiyaan dhex taagnaa. hadda qaabkaan arki jiray iyo qaabka xabsigu yahay wuxuu u kala yahay akhriya adduunyo kala joogaa. biyaha hadda xabsiga laga cabo waxaa bixiya taliyaha guud ee ciidanka asluubta. booyad macaana ayaa maalin kasta loo keenaa intay tan u galayso. wuu dhammaaday laakiin waxaa u dhiman in gudaha laga biyo geliyo ahayn oo caafi oo kale ah waaye. waa masaajidka isbahaysiga nin kasta oo tagaa waa yaqaanaa biyihiis. xaruntii hore ee ciidanka asluubta ee ku taala duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxaa heer gabagabo ah maraya xabsi weyn taasi oo loo dhammaystiray agabyada loogu talagalay in laga helo xabsiyada waaweyn. dhowr mashruuc dhow wajilaho ilaa ay ugu dambeynta 1000 maxbuus qaadi doona oo u dhisan si casri ah oo ah in qofka maxbuuska ah uu haysto daryeel iyo jiif wanaagsan iyo wax alaale wixii qofka aadanaha uga baahnaa noloshiisa markuu xabsiga ku jiro. waxbarashooyinkii baa ku jira warshadihii baa imaan doona fiiskala ka mida ay farsamada gacanta ku bari lahaayeen. maxkamaddii dambiyada qaadi lahayd ama xafiisyadii maxkamadaha iyo xeeraalinta ayaa ku ooli doona. waxaa ku ooli doona oon hadda taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo maartay ii soo jeediyey inaan ku darno saldhig booliis oo ciidanka booliiska aan halkan asoona ka howlgalo taasoo saamaxaysa in chainkii ama muxuu ahaa hay'adaha cadaaladdu ay ku dhammaadaan meesha. waxaad hadda soo aragtay oo dhan waa wejiga koowaad qaybtiisa koowaad oo ka koobneyd xabsi muxuu ahaa ilaa 220 qaadi kara oo intaas weeran kale sababtoo waxa ah qol loogu talagalay ma jirto 3 qof ka badan inay kooydaan.
saddex qof oo sariirahooda leh oo miisaska ku baranayeen leh ayaa loogu talagalay in qolkaas musqushoodii leh u gaartay ayaa loogu talagalay waxa kale oo loogu talagalay wax allaale wixii facilitieskii xabsiga oo lahaay oo dhan waxa kale oo loogu talagalay amnigii oo maartay hadda ka bacdi ciidan kaliya oo qof ah physical aan ahayn noqon doonta hab electronica in xabsiga dhan lagu ilaaliyo iyo qolalkiisa iyo wixiisoo dhan haddaan warbixintaas ka siino aadna soo aragteen mashruucan maanta ee qaybuhu ka kooban yahay inta hadda dhisan oo aan rajaynayna qaybtaana sida qorshuhu yahay inay shaqo bilowdo bisha 7 ee sanadkan hadda inuu ku jirno anigu aan odhan karo magaalo dhaqameed ama magaalo dibu dhaqangelineed oo aan kumar jeclin inaan ku tilmaamo xabsi ama lagu tilmaamo sababta waxay tahay inta badan marka xabsi la tilmaamo dadka bini'aadamka waxa maskaxdooda ka degtagtaa meel wax lagu ciqaaba laakiin dhab ahaan goobtan aan joogna ma aha goob wax lagu ciqaabi laakiin waa goob dhaqan celineed waa magaalo dhaqan celineed sababta waxay magaalo dhaqan celineed ku tahay waa goob ay laga helayo ama loogu talagalay in laga helo qaybihii waxbarashada qaybihii oo lagu baranayo farsamadihii xirfadaha xagga gacanta ay ciidanka asluubta caanka ku ahaayeen ee lagu tababari jiray dadka la dhaqan celinayo waa goobo kale ay leeyihiin goobihii cibaadada iyo barashada diinta islaamka loogu talagalay in ay nagala kulmo oo ay tahay waxay leedahay qaybihii dhakhaatiirta bay leedahay oo caafimaadka oo loogu talagalay yacni waxa weeye waa meel aynu odhan karno waa magaalo gaan fiican aanu hirgale horumar sow maahan janannada hortaydaan fadhiya horumar sow maahan biyo muuda waa heer saree horumar sow maahan hoggaamada xafiisyada helay horumar sow maahan taliskina hannaankuu ka dhiga horumar sow maahan maxbuuskoo halgee loo qalay oo hoogi laga reebay oo ay sariirana hurdaan horumar sow maahan hoggaan fiican aanu hirgale horumar sow maahan bashiiruu hilgamay oo helay horumar sooma qorigan oo qorigii matalaya oo loogu talagalay in askarigu uu ku sameeyo salaamaha iyo wixii la mid ah tababarka salaamaha wax walba soo ku gala si qoriga wax dheef kale ee xabaduhu ka dhacayaan uu u nabad galo ayagana dadka baranayaan ay uga nabad galaan markay ugu yartaa 500 oo xabo oo kuwaana waa la sameeyey waxaa naga qaatay booliiska oo kale kuwaana hadda annaga rabna inaan ku marno dabaaldega ciidankaas luubta dhammaantood waa xariisan yihiin sababtoo ah qadadiya dhow inta qadada la cunaa dhalooyinkana waxaa soo gala xiisado ayaga ay markaas rabaan qoladii filim rabta musasara qoladii rabta cayaaro waxyaabo badan oo soo gala ayaa gudaha loogu xaroodo oo la fiirsana qolalkaana lagu wada jiraa ujeedinta qololka u muuqata qolalkaasaa lagu wada jiraa meeshaas 6 qoloo kale waaye inta waa 5 qol kuwa kale waa gudaha hoose marka waa taa arrintooda
taliya xigeenka ciidanka asluubta jenaraal cabdikariin cali afar ayaa waxa uu qabaa in horumar weyn ee iminka ay gaareen taliska ciidanka asluubta TV-ga dowlad goboleedka Jubbaland waa soo dhaweynaya ku soo dhawaada taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed shaqadiina oo u baahanaa markasta inaan xiriirno waa TV aan jecelnahay iyo maamul goboleed aan jecelnahay oo Soomaaliyeed oo sharaf loo maamulkiisa hoggaankiisa raalli kana agta ku hayno oo talis ahaan aan go'aansanay inaan wax ku maamulno qaabkii ciidanka asluubtu burburkii iyo kala tagii iyo colaadii dalkeena ka dhacdo qaabka uga soo kaba lahaa yaanu agta saarnay oo aanu gacanta hadda ku haynaa alxamdulillah talisyo badanaa soo maray ciidanka asluubta intii burburka jiray iyo ka horba waxaanu hadda isleenahay qaabka aad wax ku wadaan raggii hore lagu aas-aasay hoggaankeeda ciidanka asluubta qaabka wax u wadi jiray oo kaleeto ayaanu hadda isleenahay kan haatan maxaan ku raahdaa hoggaanka hayahay waa ka sii xaq jira oo waa ka sii mudan yahay waad aragteen maxaabiistu taakay ku seexa jira hal taaka maxbuus ku lahaa jira iyo 3 farood oo ku seexa jira taliskan ko hadda maxbuusku wuxuu leeyahay sariir oo ku seexdo maxbuuska qorraxda wax yar la tusi jiray nus saac hadda qorrax la tusi iska daayay waxba u bartaa iskool baa u furan farsama u furan oo maxbuusku markuu dhameysto waqtiga lagu xukumay ee laga goosto dambiga u galay gurigiisa marka la siidaa gurigiisa markuu ku laabto si qaabka uu noolaa lahaa iyo wuxuu ku shaqaysanaa isoo yani xirfadii noloshiisa uu ku dabari lahay ayaa la baraa meeshan waxaa ka furan intermediate up to bachelor waxbarasho aad ku qaadanaysa jaamacad ilaa dugsi hoose baa loo furay horumarkaas waxaa gaaray maxaabiista xiran ma lahaa jirin isbitaal ma lahaa jirin hadda asluubtu waxay leedahay isbitaal taqaatiir asluubtu leedahay yaa shaqayda waad aragteenan u malaynayaa warshado nacam maxaan ku raahdaa hadda kuwa la kicinaayo oo hadda cusub iyo kuwa hore u shaqaynayaba isugu jira dayactir maxaan ku raahdaa lagu sameeyey xabsiga biyamuudo la yidhaahdo oo cusub oo la furay tiyaatar ama naadi maxaan ku raahdaa saraakiisha iyo kooxda onkod loo sameeyey xabsi dhexe oo weyn oo ballaaran oo la dhisayo hadda bila kadib in la furo loo malaynayo waxqabadku runtii sooma koobi karo qiimo yani maxaan ku raahdaa hadda koobna in badan iloobayaa jirta laakiin waa hadda qoraalkii ma aana diyaarsan si Sabe
asluubta Soomaaliyeed waxaa la asaasay 72 oo magacaan asluubta weligii way jirtay askalgaal shiray ahaayeen laakiin magacaan ciidanka asluubta iyo ku biirista ciidamada dalka 72 ayaa lagu dhawaaqay balisare gacanka intii uu jiray tuladii rayidka ahaay askargaal shiray iska ahaayeen laakiin waxaa la ciidamadeeyey ciidamada qaybta saddexaad laga dhigay 72 anigu waxaan ku soo biiray 77 la asaasay sida aan filayo haddaynu 70 inkastoo ilaa markaa kama tirsanayn 70 ilaa markaa kama aan tirsanayn ciidanka aniga 74 ciidanka ku biiray anigoo markaa joogay xarunta Lafoole dhalintii lagu soo barbaariyey ka mid ahay ayaa ciidankana loo qaatay 74 waxaan galay qaybta muusikada ayaan ka mid noqday ilaa aqoon fiican aan muusikada u yeelano ka bacdi iskoolaan galay dugsi saraan ka baxay kulliyadaan galay waan ka baxay markaan kulliyadda ka soo baxay transferka ugu horreeya wuxuu igu dhacay Kismaayo taliya xigeenka gobolka Jubbooyinka in lagu bedelo Kismaayo Kismaayo waxay igu dhacday qamtii nolol cajaa'ib aan ka soo qaaday waa ka soo lugeeyey ilaa Baraawe ilaa aan xamar soo galo waxay igu dareed nimankii qabiil ahaan ii soo qaaday inaan qabiilku baraka lahayn aan idiin sheegaa Baraawe iga soo qaaday ilaa Baraawe aan lugta kuga imide markii ay i keeneen xamar gurigii ay dejiyeen haddana intay igu yimaadeen ay igu bililaqaysteen qabiil macno la'aantiisu inuu kaas yahay markaas qabiil ahaana la ii soo qaadayay markaana qabiilkii kaloon sii ahay iyo kuwaan aniga i keenaya isku dhacay aniga la yiri aan inta keenaba aan reerkaas waay marka Kismaayo Baraawe ma aqmaan la soo socotay waxaan 15 casho ما صحيح waa watay awra ay raray ilmo badanaa jidka uga daba imid iyo qoysas baqtinaya wixii oo dhan saddex ratiyo raashin iyo ilmo aan fuuliyay iyo waxa ay raraa waxyaabo mid badan aan ka dhaxalnay meeshaan oo buurtaan ka dhaxalnay inkastoo rag fara ku tirisa ay ku mintideen oo aanu ku jirin oo inayna gacanta ka bixin ku dadaaleen oo ina soo gaarsiiyeen Unisom markii imaanaysay ayaan xoogaa isugu soo noqonnay taliskii guud sidoo kale ahay oo noo fiicnaa haddana waa sidiisii gacanta kama bixin oo sidii gacanta loogu hayay weli gacanta loogu hayay marka burburka saameyn kuma yeelan laakiin wuxuu administration ahaan iyo deegaan iyo dawladnimo iyo waxaasoo dhan eberay noqdeen goobihii kale taliska iyo meeshaan maahan waan gartay maadaama in muddo ah uu dhisnaa iminka loo dabaaldegayo 47 guriga ka soo wareegatay ma xasuusataa inta taliya ciidan ay soo martay asluubta way badnaayeen waxaa ugu horreeyay sareegaas Ismaaciil Axmed Ismaaciil oo ninkii aasaasay ahay asluubta badan u taagay waxaa ku xigay sareeguuto sareegaas Cilmi Sahal Cali Abdullaahi Macalin Xuseen Xasan General Bashir xilliga hore sidee ayaa loo qaadan jiray ciidanka qofka markii la tilay kamid ciidanka laba qaybood loo qaadan jiray inuu ninka aqoon lagu qaadanayo iyo nin oo iski loo qorayo oo markaas ciidan ahaan caadi laga rabo tababar loo dirayo kulli tababar waa loo wada dirayaa haddana ninna aqoona lagu qaadanayo xafiis gaar ah qora
ninna hoggaanka ciidanka qoro waa askari dabla ka bilaabay oo sidaa u sii horumaraya kabacdiba wax barto ama waxay yaqaaneen ha u qarsoonaadeen laakiin qofkii jaamacad wadatoo kale ama dugsi sare ka soo baxdoo kale xafiis lagala xisaabtamay talisku go-aan oo gooyaa lagu qori jiray xilliga hore iminka haddana waa sidii wax isbedel kama jiraan wax alla waxa saraakiil meesha jooga waa wada baaj oo yareerka laba xidig la tukabtan hadda la qoray taliskaana qoray taliskan kii ka horreeyey iyo kii ka sii horreeyey iyo kii ka sii horreeyey waxaana daaya kaa ilmaamay kuma jirin waxa horumarka aqooneed wax ku qori jira iyagu waayo ayagoo jaanisku ku xumaa iyo ayagoonba u dhagadaloolin labadaasaa iskula kulmay laakiin taliyihii hore ee ciidankan aasaasay wuu samayn jiray haba yaraadaane inuu ciidan jaamacada ka soo baxay qaato niman dhaqaatiir ahayaa jireen aan waxaan xasuustaa dhakhtar hadda nairobi ku leh isbitaal gaashaanla sare ciidanka asluubta kabtanaa lagu qaatay intii oo 2 sano gudahoodana gaashaanla sare u tegay master oo ahay doctor medicine oo ahay nin oo aqoon sare lahu lahay aqoontiya markaa heerkaas gaarsiisa haddana inuu ahay waxaa ku garanaysaa nairobi oo isbitaalka ugu weyn wax ku leeyahay isagaana dhakhtarka taliskan in gaaban u joogay meesha kaasu 21 sano joogay iyo ka badan waayo 60kii u qabtay taliska ciidanka asluubta ninkaas marka isku biridii waqooyiga iyo koonfurta oo taliya ugu horreeyay marka meeqa hayn karaa 30 ku dhawaad oo hayay ilaa 5 sano oo laga bedelay moogiye intaasoo dhan isagaa hayay taliskan hadda wuxuu hayaa 2 sano oo wax dhiman inta arkeedoo dhalinyaro oo halkaa yaacaysoo 2 xidigle kabtan wax walba leh waa wada baaj iyo master laakiin ma dhihi karaa xilliga hore xaalka siduu ahaa iyo xaalka imanka inay kala bedelayeen طبعا واجي هore computer lama isticmaali jirin aqoonta maanta jirto qaarkood online lagu barnaa moosan jirin marka taliskan arintaas u saajis ma dhihi karaa ma lama dhihi karo waa sida loogu kala firfircoon yahay in horumarinta ciidanka la sameeyo sida loogu kala firfircoon yahay waayo markaasba waxaa jiray national service dhalinyaro ah oo la qaadanayo oo markaa haddii la yidhaha waxaa laydinku qaadanayaa darajada xidigle ee kulliyadda gal hore ka gelaayeen aa jireen kuwa waxaa jireen jaamacad kuwaas waaba qaadan jireen inkastoo la yarayn jiray waa la qaadan jiray laakiin jaamacadda la fuuloo kale meeqaa ka soo baxday dufcadood oo loo baahnaa ciidanku inuu ta wax ka qaato u tababaro qaabka dhaqan celinta maxaabiista iyo horumarinta ciidanka asluubta nin aqoon leh iyo ninka ofishaal garab saar dab ah isku sibay u noqonayaan waa maya waayo ninkan hab ciidan bisu yaqaanaa laakiin xagga economy wax walba ka imaanayeen ninkan dhaqdhaqaaqa masterka waa nin waa ka bixi karaa marka ofishaal superior tago ninkan master taga jananka ciidanka haysta waa la talinayaa xataa markaas booy jirta waa loo kala dhashay marka abuurka shaqa abuurka iyo tayeynta ciidanka waa loo kala dhashay waxaan aaminsanahay in taliskaanu isbedel hadduu 10 sano 2 sano joogay heerkan mare ee markuu 10 sano joogo maxaad u malayn adiga marka dhalinta hadda oo baajka wadato oo aqoonta leh ee rabta ciidanka inay ka muuqato ku dhow ma dhihi karaa marka waxay fahmeen wadaniyadnimada ciidanka wuxuu yahay halkan daawadayaal waa xabsiga dhexe magaalada muqdisho TV-ga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa u korgalay xaaladaha kala duwan ee ka jira xabsiga dhexe qaybtan waa qaybta dumarka waxa ku jira dumar ka badan 20 meeyo oo xukuno kala duwan ku dhacay qaarkood waxa ay la shaqeynayeen maleeshiyada al-shabaab maanta oo ku beegan 22 Febraayo daawadayaal
waa 47 guuradii kasoo wareegatay markii dhidibada loo taagay ciidanka asluubta ayadoona taliska ciidanka asluubta uu hambalyo u diray meel walba ay joogaan ciidanka asluubta dalka barnaamijkan gaarka daawadayaal waxaa idin soo saartay isla markaana idinla socodsiinaysay anigoo ah Nimco Xasan Cabdi barnaamij ceenkan oo kale intaan ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo